waxaan idin farayaa sharaftii iyo quruxdii ay arabsiga lahayd iyo ardaydeedu inaad muujisaan aqoontii macallimiintiinii dadaashay idinku soo shubeenna inaad halkaa keentaan waxyaabaha xaaraanta idinka aanaad dhaaftaan wixii aad dhigatay haddaad maskaxdaada dejiso waad ka shaqayn karaysaa labaad waxaan idinku dardaarayaa macallimiinta idin ilaalinaysa si anshax leh oo akhlaaqad leh oo edaab leh inaad ula shaqaysaan macallimiinta oo nin walba iyo arday waliba meeshii loogu talagalay inuu fadhiyo maanta waxaa si rasmi ah guud ahaan Soomaaliland looga daahfuray imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada 4 iyo 8 ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley gudoomiyaha waxbarashada Marwo Fadxiye Ma Xasan Said ayaa si rasmi ah uga daahfurtay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada 4 iyo 8 Marwo Fadxiye Ma Xasan oo la hadashay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixisay isla markaana sheegtay ardayda tirada guud ee ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee degmada Arabsiyo iyadoo amuurahaasi iyo kuwa kale ka hadlaysa waxa kamid ah hadaladeedii kullay halkan waxa ku galaya maanta imtixaankii shahaadiga ahaa bay noo bilaabmay ee dugsiyada dhexe ee aydka iyo dugsiyada sare fasalka form 4ka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa marka hore ilaahay inuu guuleeyo ardayda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Gabiley ama degmada Arabsiyo marka xigta waxa Arabsiyo imtixaanka u fadhiisanaya 400 arday 240 arday waa dugsi dhexe inta kalena waa secondary oo waa 162 arday dhamaantood waxaan rajaynayaa sidii looga bartay inay imtixaanka guul ka soo hooyaan ayaan ka rajaynayaa Arabsiyo oo degmooyinka ugu balbalaaran gobolka Gabiley waxbarashadana ku suntan aad waxaan rajaynayaa inay ardaydaasi ay si nabadan imtixaanku inoogu bilaabmay insha Allah si nabadan inoogu dhamaado dhamaantoodna ay guul gaaraan ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa TV-ga qarankana aad baan u hambalyeeynaa Muuse oo goor horeba soo booqday oo dadaalaya aad iyo aad waxaan rajaynayaa inay ardaydaasi guuleystaan insha Allah bidmillaahi kariim waxa lagu galayaa 3 goobood goob waxa ku galaya labadii secondary Arabsiyo sare iyo badbaada sare goobtan aynu joognana waxa ku galaya dugsiyo dhowr ah dugsigii dhexe Arabsiyo Carra Yaambo Carra Guduudan biyo macaan huluuq gogol wanaag gees dheere dhalaadu labada barayfada ee Al-Cirfaan iyo badbaado aad baan guul ugu rajaynayaa ardayda macallimiinta wax soo bartay iyo waalidiintooda insha Allah ku guuleystaan ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa arday waliba waxoogaa warwar baa yara jira warwarkan waxaad kaga baxaysaa qof walba inaad Quraan akhrisato Ilaahayna aad tawakkalato ha isku haleyn arday kale mustaqbalkaaga arday kale ku haleyn anagu haddaanu nahay macallimiintii imtixaanka idinka qaadaysay waxaanu halkan u nimid inaanu insha Allah ta'ala si wanaagsan aanu idin la shaqeeyo imtixaankaasina si wanaagsan ku bilaabmo si wanaagsan ku dhamaado mustaqbalka insha Allah anu sanadkii hore halkan waan joogay arday wanaagsan oo qiimo badan ayaa supervisor oo ahaa oo aanan ka caban Gabiley wixii ka dhacay gobolka Gabiley oo ogeeyay sanadkii hore laakiin sanadkan sidoo kale inaad si wanaagsan yeeshaan oo akhlaaqadii iyo magaalada waa magaalo waxbarasho magaceegii inaad ilaalisaan sidii ku horeba u ilaaliyeen marka taasina idin rajaynayaa insha Allah iyo guulna waa idin rajaynayaa ardayga muxuu ahaa iyo wiil iyo gabadhba ina guuleysataan baa idin rajaynayaa insha Allah marka hore adeer waa idin ducaynaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa guuleysta ee gobolka iyo Soomaaliland kuwa ugu sareeyay ilaahay idinka dhigo maxaa ku noqonaysaan sida marka hore waa inaad akhlaaq yeelataan waa inaad ilaahay ku kalsoonaataan nin walba waxaad yeeshaa maskaxdaada soo jeedi ilaahayna ku kalsoono akhlaaq iyo idaab muuji qofku haddaanu akhlaaq lahayn ilaahay agtiisana waxa uma yaalaan waalidkiisana ma yaqaano macallinkiisana ma yaqaano waxaan ilaahay ka baryaynaa inaad noqotaan ardayda ugu qiimaha badan leh ee magaca Arabsiyo kor u qaada ilaahay idamkii waa idin rajaynaynaa khayr wanaagsan baa idin rajaynaynaa adeer waa idin ducaynaynaa waa guuleysanaysaan nafta khayr sheega annagu waxaanu nahay abnigiinii abniga ilaalinayna inanka abniga xumeeya de hadhow toole waa si jiidanayna adeer waliba waa idinka warwareegaynaa ninka fuul garaynaa waa nin la kari waayo aad baan idin la shaqaynaynaa si fiican oo akhlaaqi ku jirta adeer wada shaqayno galaasadiina gala ilaahayna ha idin guuleeyo Muuse Xuseen Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley.